waxaa la xirxiray maamulkii degmada iyo odayaashii iyo wendargarad badan oo meeshaas joogay oo hawshaas xalkeeda ama maartay ka hortageedaba inay maartay wax ka qabtaan ay suurtagal ahayd howl shaqo joojina lagu sameeyay maamulkii gudoomiyihii dambiilayaashina waa lagu raad joogaa si waliba adag ayaan looga howlgalay insha Allah ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareynaa insha Allah inay mar dhow cadaaladda horteeda imaan doonaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وحان ماشان كسلام يا دمان ومدى الصوماليات خاصة تلفزيون كقرنكا هول ودنديس مدالياشا يا دمان أقاسم كي صودان سلام كدي وحان ربا أنا هالكان واحد الله مالمهان وحا دالك الصومالي آد وجرتي على هذا السكية oo ugu dambeysay in maartay daraad lagu dilo niman dhalinyaro ah oo ciidan ah iyadoo shaar qabiil lagu dilayo arintaas oo runtii bulshada Soomaaliyeed aad u xanuunjisay dadka dhan ay dareen isku mid ah ka qaadeen arintaas haddii aan dadka ummadda Soomaaliyeed u bayaaniyo dawladda Hirshabeelle isla markii ay hawshaas u dhacdayba tallaabo ay qaaday oo madaxweynaha stateka Ali Guudlaayo oo hormuud u yahay waxaa la xirxiray maamulkii degmada iyo odayaashii iyo wendargarad badan oo meeshaas joogay oo hawshaas xalkeeda ama maartay ka hortageedaba inay maartay wax ka qabtaan ay suurtagal ahayd howl shaqo joojina lagu sameeyay maamulkii gudoomiyihii dambiilayaashina waa lagu raad joogaa si waliba adag ayaan looga howlgalay insha Allah ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareynaa insha Allah inay mar dhow cadaaladda horteeda imaan doonaan midaas marka halka uga gudbo qabiilka nimankan horta ciidan ay ahaayeen ciidankana waxa weeye dawladda iska lahayd joogta calashan waligay waagi hore ma dhici jirin nin askariya in qabiil u soo danaaniyo ama qabiil u heliyo ama qabiil u aargudo laakiin maadaama dalku iska burburay oo hadda qabiil la yeelay kala aruuray hadda wax la qariibsado ma ahan marka waxaan rabaa inaan u sheego beesha ay nimankaas toos uga soo jeedaan oo xanuunka goonida oo taabtay ummadii Soomaaliyeed oo dhan iyo dawladda ay la safan waxaan leeyahay bishaareynaa insha Allah dadkii falkaas ka dambeeyay inay cadaalad hor imaan doonaan arintaas marka waxa adinku marka iyadoo leedeen heelinayo oo garabkiina la taagan yahay suuga oo calashan talaabo kala qaadinina ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay idin wada doodaysa idin garab taagan idin la wada xanuunsanaysa marka insha Allah deegaanashan hal la muujiyo ragga idaacadaha ka hadlaan waxaan dhihi lahaa si wanaagsan oo maartay calashan inay u hadlaan oo dadka dejisa sababtoo ah nimanka hadda dadkan la qabiil ma ahan qabiilna kuma tashanin nimanka yar dhalinyarada askarta in la laayo laakiin dad wax magarada ka dambeeyay wax magaradkina cadaalad hor imaan doona insha Allah marka in qabiil loo nisbeeyana ma rabno in qabiilkii maartay arintaas ay saameysana oo maartay asagoo gadood iyo kacdoon sameeyay rabno arintaas runtii haddaan dhinac kale aan xataa ka fiirino waxay u tahay taageero buuxda u tahay nimankan duurku ku jiro shabaabka la yiraahdo oo aan isleeyahayba umay ka dambeeyeen hawshaas in saas u dhacdo sababtoo ah in askartu mugdi kala galo oo maartay la isaamin waayo oo qaarkood qalqalaan oo maartay qabiil la isu raasado ciidanka dhexdiisa ay shartaas ka abuuraan ay suurtagal tahay inay ka dambeeyeen laakiin alxamdulillah uma suurtageli doonto intaas kadib waxaan rabaa baaq guud oo ummadda Soomaaliyeed war 30 iyo dhowr sano hadda qabshaxda isku haynaa maalin boqolo maartay la soo dilaa maalin boqolo ay geerida nambarka badan yeelanay qoladii nambarka yar yeelatana aad moodo xogaa inay maalintaas ay kofeega ku cabayaan annaga waxaa naga dhimatay 8 laakiin iyaga 12 ka dilnay war 12 cid kale ka dishay oo ay kugu taagan tahay calashan inaad walaalka dishay markii laga reebo 8 inaad ka dhimatay oo guriga hadda calashan 8 guri laga ooyaayo oo 16 waarid oo ay aaba isugu jirta ay barooranayaan calashan iyada ma dareem weysi hatta hadda 12 ka qolada kale ka dishay aad buro u aragto wararta 30 ka sano iyo dhowr kaas oo la isdilaayay hal qabiil oo ka faa'iiday isdilkaas wax yarna Allah ka dhigay oo dhihi kara intaas oo faa'iidaan ka gaaran haduu jiraan la soo wadaag runtii oo baraha bulshada ha yimaado haddii aysan jirin oo maarta xanuunka oo maarta aan qaybsano qorya laga soo furtay iyo shana laga dilay iyo baawura laga gubay iyo way naga carareen iyo anaga ka adkaanay iyo anaga yeeli jirnay iyo dad intaas anagu aan isugu sabri laanahay wax ka daran isugu sabraya maanta dalkeena hogureysanaayo oo badana jidadka maartay u taagan calashan usoo hanqal taagayo oo beriga aan xataa nagu dhaafay intaas kadib waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed aan ugu baaqo
oo aan maaragtay kala taliyo maadaama intaasoo sano aan isdilaynay oo maaragtay wax naga dhinta maahan iyo wax naga dhaawacma iyo wax hoos nooga dhaca maahan waxba aanan ka faa'iidin inta anagu isugu sabri la'nahay wax ka dhib badan ama ka badan dad isugu sabreen ay maanta badeeni barigeeni way hunguraynayaan war ilmadeerayaal caqliga ha soo laabto